kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal soo dhawaada waxaan idiin soo gudbinaynaa wararkii ugu dambeeyay Axmed Madoobe oo markaasi iska diiday ka qaybgalka shirka Carto ee wadanka Djibouti iyo sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa sababaha uu markaasi ku diiday Axmed Madoobe ka qaybgalka markaasi kulankaasi weyn. sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa Xasan Sheekh Maxamuud oo tallaabo culus qaaday xilli markaasi uu weerar markaasi ku qaaday Puntland isla markaana uu dagay qorshe cusub oo Saciid Dani markaasi lagu cadaadinayo. sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa Abiy Ahmed oo ka hadlay sida Itoobiya ay ku weeday badda Cas xilli xiisadda Soomaaliya iyo Itoobiya mar kale ay u muuqato mid soo laba kacleynayso maadaama Itoobiya ay qaaday tallaabooyin markaasi lid ku ah madax bannaanida Soomaaliya. haddaba intaanu guda galin marka koowaad soo dhawow muuqaalkan like saar siina share garee si dad badan warbixinteena ay u gaarto. waa hagaag sidaad badankii la socotaan wadanka Djibouti waxaa ku sii qulqulaya wufuud kala duwan oo markaasi qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed isla markaana halkaas ay u tageen casuumaad uu u fidiyay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele. kulankaas ayaa waxaa lagu casuumay dhammaan madaxda Soomaalida muxaafad iyo sidoo kale mucaaradba. horey waxaa u diiday kulankan in uu ka qayb galo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoo sheegay in shirkaasi wax muhiimad ah uusan u lahayn shacabka Soomaaliyeed isla markaana haatan uu ku mashquulsan yahay ololihiisa doorashada 2026. madaxweyne Farmaajo kaligiis ma ahayn, waxaa sidoo kale kulankaasi lagu casuumay oo markaasi diiday in uu ka qayb galo Cabdiqaasim Salaad Xasan waa madaxweynihii hore ee markaasi dowladii ku meel gaarka ahayd ee lagu soo askumay magaalada Carta. waxaa isna uu markaasi ka cudur daartay ka qaybgalka kulankaas. hadda warar markaasi na soo gaaray waxa ay sheegayaan in madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam uu iska diiday in uu ka qayb galo shirka Carta ee markaasi loogu dabaaldegayo 25 sano guuradii ka soo wareegatay markii dowladda federaalka lagu dhisay halkaas. Madoobe ayaa markaasi sheegay in uusan qayb ka noqon doonin madaxda ka qayb galayso shirkaasi, waxaana qayb ka shirka madaxweyne Xasan Sheekh iyo sidoo kale koox markaasi madaxda maamul goboleedyada ee markaasi muddo dhaafka ah iyo odayaal markaasi dhaqameed. madaxweyne Axmed Madoobe ayaa aaminsan in shirkaasi aanu wax faa'iido u lahayn Soomaaliya, waxaana cadeeyay in uusan markaa qayb ka ahayn. dowladda Djibouti ayaa casuumaad rasmi ah u dirtay madaxweynayaasha Jubbaland Axmed Madoobe iyo sidoo kale Puntland Saciid Dani waayna diideen in markaasi ay ka qayb galaan, waxaana diidmadan markaasi kaga sii horeeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo horey u diiday in uu ka qayb galo kulankaasi. maadaama siyaasad ahaan Jubbaland iyo Puntland iyo Villa Soomaaliya aysan isku wanaagsanayn, waxaa markaasi muuqato in Jubbaland iyo Puntland ay markaan iska diideen in ay ka qayb galaan madal markaasi ay joogaan madaxda markaasi dowladda federaalka ee Soomaaliya xilli khilaafaadka gudaha ee dalka uu cirka isku sii shareerayo, halka Villa Soomaaliyana ay ku qanacday in ay markaasi ka qayb galaan dabaaldeg lagu dabaaldegayo 25 sano guuradii ka soo wareegatay markii dowladii federaalka ee dowladii ku meel gaarka ahayd lagu soo dhisay magaalada Carta ee wadanka Djibouti, iyadoo nidaamka markaasi habka awood qaybsiga ee 4.5 halkaas lagu soo askumay isla markaana badi shacabka Soomaaliyeed ay u arkaan inuu yahay mid markaasi caqabad ku noqday horumarka Soomaaliya isla markaana keenay dhibaatooyin badan oo haatan weli dalka ka taagan. waa hagaag dhinaca kale Villa Soomaaliya ayaa markaasi saacadihii la soo dhaafay qaaday tallaabooyin culus oo lagu cadaadinayo siyaasadda markaasi Saciid Cabdullaahi Dani, waxaana lagu soo waramayaa in Villa Soomaaliya ay shax cusub markaan degtay maadaama cadaadisyo xoogan ay markaasi saareen madasha samata bixinta oo la midoobay Jubbaland iyo Puntland, waxaana haatan ay markaasi Villa Soomaaliya bilowday qorshe dhinacyadan markaa la isaga horkeenayo isla markaana la isku dhufanayo maadaama haddii ay u midoobaan madasha mucaaradka iyo dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ay markaasi xaaladda ku adkaan doonto Villa Soomaaliya. waxaana Villa Soomaaliya haatan ay dardar gelinaysaa qorshe ay markaasi doonayaan in ay si gaar ah ugu heshiiyaan Axmed Madoobe si markaasi Saciid Dani uu kaligiis meel u soo istaago maadaama madasha mucaaradkana ay kala furfureen badi oo hadda inta soo hartayna weli ay markaasi doonayaan in ay laba usii kala qaybiyaan. Villa Soomaaliya ayaa bilooyinkii u dambeeyay waxa ay markaasi bedeleen
la macaamilka mucaaradka ama dadka markaasi kasoo horjeedsado aragtidooda, waxaana keliya ay markaasi ku howlgalayeen kala furfuridda midowda markaasi siyaasiyiinta ka aragtida duwan filla Soomaaliya. waxaana haatan soo baxaya warar markaasi sheegaya in filla Soomaaliya ay markaasi karkarinayso qorshe ballaaran oo ay doonayso inay kaga hortagto kulanka weyn ee ay iclaamiyaan golaha mustaqbalka oo ku mideysan madasha samata bixinta iyo dowlad goboleedyada Jubbaland iyo sidoo kale Puntland. wuxuuna qorshuhu yahay in dhinacyadan markaa la iska horkeeno isla markaana la baajiyo kulanka weyn maadaama uu caqabad uu ku noqon karo damaca filla Soomaaliya ee markaasi muddo kororsiga ah. waxaana xasan sheekh maxamuud la filayaa in toddobaadyadeen soo aadan uu markaasi ka dego magaalada Kismaayo si Axmed Madoobe halkaasi uu wadahadal markaa uga bilaamo. wadahadalkiisa ayaana markaasi ujeedada ka dambeysa ay tahay in uu markaasi kala furfuro dhinacyada madasha samata bixinta iyo sidoo kale madasha mustaqbalka oo markaasi la midoobay dowlad goboleedyada Puntland iyo sidoo kale Jubbaland. hagaag wali warbixinteena ayaa daawanaysaan. dhinaca kale ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa sheegay sida uu dalkiisa u lumiyay maranbadeedka badda cas ay markaasi qaladaad sharci ah markaasi ay ku jiraan. Abiy Ahmed oo shalay markaasi hadal uu ka horjeediyay baarlamaanka dalkiisa ayaa tilmaamay in go'aanka uu dalkiisa ku lumiyay badda cas aanu ahayn mid ay gaareen golihii wasiirada ee waqtigaas isla markaana aanay jirin hay-ad sharci ah oo ansixisay, baarlamaan meel mariyay iyo afti laga qaaday shacabka Itoobiya midna. waxa uu sheegay in Itoobiya ay badda cas ku weeday halgan qaatay 30 sano, in ay hashana aysan qaadan doonin 30 sano oo dambe, balse loo marayo waddo markaasi sharci ah. dhanka kale Abiy ayaa fariin adag u diray dalka Eritrea, waxaana mar kale ku celiyay in aanay Itoobiya wax qorshe aysan markaa ka lahayn dagaal dhexmara iyaga iyo sidoo kale Eritrea. waxa uu ugu baaqay in aysan markaa noqonin waxa uu ku sheegay xabad gudbiyayaal ee ay noqon doonaan dal markaasi nabadeed, isagoo intaa ku daray in aysan Itoobiya dagaal markaasi aysan waqti u hayn oo ay ka shaqeynayso mashaariic markaasi balaayin dollar ay ku bixi doonaan. Itoobiya ayaa markaasi in badan isku dayayso sidii ay markaasi ku gaari lahayd badda cas, waxaana markaasi jiray heshiis hore Itoobiya ay ula gaartay Somaliland oo markaasi dhaliyay muran aad u xoogan. waxaana markaa lagu soo waramayaa in Itoobiya haatan ay qaadayso tallaabooyin badan oo markaasi lid ku ah madax banaanida Soomaaliya si ay u kala dhantaasho Somaliland iyo sidoo kale Soomaaliya. waxaana haatan lagu soo waramayaa in markaasi Abiy Ahmed uu diyaarinayo qorshe siyaasadeed uu ku doonayo in markaasi badda cas Itoobiya sidii ay ku heli lahayd waqti markaasi dhow, isla markaana ay xoog ama xeelad tii hadba u suurta gashay markaasi ku doonayso. haddaba dad nala soo gaartay dhamaadka muuqaalkan, fadlan nagu soo biir oo subscribe-ka noo taabo, sidoo kalena muuqaalkan like gare sina share gare oo la wadaag saaxiibadaada.